waxaan baranaynaa sida username iyo password loogu sameeyo computerka Windows 7 iyo Windows 10 marka ugu horeyso Windows 7 kan fiirinaynaa marka username ka sameynaysid waxaad tagi kartaa isheeg start button ka ku dhufanaysaa start button marka ku dhufatid waxa ku dhufanaysaa control panel ku dhufanaysaa then waxaad tagaysaa user account and family safety ku dhufanaysaa ama meesha ka hooseysa fiirsid add or remove user account laakiin hadda gudaha sii galaynaa gudaha markaa sii galno waxaad ku dhufanaysaa user accounts ka markaad joogtid waxaad ku dhufanaysaa add or remove user account so meeshan way meesha ii sheegay username ka laga sameeyo haddii aad username ka aad samaysatayna aad password rabtid inaad u samaysid username ka ku dhufanaysaa then markaa ku dhufatid waxaad leedahay create a password u samey baa leedahay laakiin haddeertaan waxaan rabnaa inaan barano sida username kana hal mar loo sameeyo password kana loo raaciyo so hadda waxaan sameynaynaa marka meeshan hoose ku dhufanaynaa create a new account meesha falaarta aan saaray create a new account markaad sameynaysid marka username ka laba nooc u kala baxaa mid waa standard username midna waa administrator marka standard account users can use most software qaarkood ama badankooda ayaad isticmaali kartaa and change system settings systemkan waxbaa ka bedeli kartaa that do not affect kaasoo wax saameyn aan ku yeelanaynin other users kuwa kale username-yada kale or the security of the computer iyo qaybta security-ga ee computerka marka qaybta kalena waa maxay marka administrator-ka asigana markaad dooranaysid tigta saaraysaa administrator baa ka noqonaysaa maxaa yeelay meel kasta computerka isticmaali karta permission macnaha ogolaansha u haysataa inaad wax ka bedeli kartid waxna kusoo kordhin kartid ma fahamtay marka administrator-ka marka dooranayna ama haddaad rabtidna waxaad dooranaysaa standard user-ka badanaa haddii aad computerka adiga leedahay administrator waa inaad doorataa laakiin haddaa qof kale computerkaaga username uga sameynaysid waa inaad standard user-ka waa inaad isticmaashaa aad magaca u sameysaa then boxka ka koreeyo baad waxaad leedahay new account baa leedahay new account name-ka meeshaas ku qoraysaa magaca waa maxay marka how to make waxaan leenahay kaliya username-ka know how ba userkeena ama haddaad rabtid magacaaga ka dhigi kartaa hadhowtiina standard-ka username-ka type-ka username-kaagana waa bedeli kartaa meesha ugu koreysa wuxuu ku leeyahay name the account and choose an account type marka account type-ka waa noocee marka ma standard ba mise waa administrator marka dooqaaga adiga yaqaano markaad samaysanaysid laakiinse saasaa loo sameeyaa then waxaad ku dhufanaysaa meesha hoose ku qoran tahay create account baa ku dhufanaysaa create account markaa ku dhufatid then magacii waa samaysmay know how baad kusii dhufanaysaa si aad password ugu sameyso then markaa ku dhufatid waxaad dhankan ii sheeg leftiga haddaa fiirisid waxaad ku haysataa create account ma fahamtay make changes meesha ay ku qoran tahay to know house account ama magaca meeshaasi adiga aad samaysatay hoostiisa marka change the account name waxaa ka hooseeyo create a password then change the picture sawirkan waa ka bedeli kartaa
set up a parental control waxaadana oo samayn kartaa carruurta loogu talagalay in computerka waxyaalaha qaarkoodna laga xiro waxyaalaha qaarkoodna loo furo ama waqtiga computerka loogu xiro hadhowtii markii aad waqtiga gaarto ay sheegay hal saac camal markuu cunuga isticmaalo then computerka automatically waa isdaminayaa then password ku xiran cunuga ma furi karo marka passwordka adaa u hayo marka waxaa la dhahaa set up parental control ma fahanta waa qaybta waalidiinta isticmaalaan change lagu dhahay the account type kana meeshaana ka bedeleysaa marka account type kaaga hadduu yahay standard user account type kaaga inuu standard user yahay maxaa kuga garanaysaa meesha hadeertaan know how ee sawirka yar kaaga muuqdo hoostiisa haddaa fiirsid waxaa ku qoran standard user marka standard user kaas waaye haddaa ratidna waxaa leedahay ka bedel account type-ka administrator kasoo dhigaysa haddaan ku dhufano waa ka administrator waa soo dooranaysaa then change account yaa ku dhufanaysaa then waa ka administrator isku bedelaya then waxaa leedahay create password ku samee waa leedahay then passwordka markaa ku sameynaysid waxaa leedahay marka passwordka 1 2 3 waa ka dhigaynaa okay 1 2 3 waa ka hintigana waa maxay waa 1 2 3 okay qaybtan ka hooseyso qaybna passwordka la gelinayaa qaybna waa confirmation waaye 1 2 3 waa confirmation okay labada hoose midna waa gelinaysaa midna waxa weeye waa lagaa hubinayaa ama iska hubis ama inuu sax yahay inuu qalad yahay marka midda ugu horeysana waxa weeye type qor waaye waa password hint meesha ugu hooseyso hint waa maxay waxaa kusoo xasuusanaysid passwordka waaye okay maxaa kusoo xasuusanaysaa waxaa kusoo xasuusan kartaa number 1 2 3 waa number sooma waxaan leenahay number hadhowtii haddaa garan weyso number baa leedahay ama hadhowtii haddii aad garan weyso passwordkaaga gabadhaada magaceeda ka dhigi kartaa wiilkaaga magaciisa ka dhigi kartaa ninkaaga ka dhigi kartaa ama waxyaalo kale ka dhigi kartaa laakiinse waxaa kusoo xasuusan kartid oo adiga keliya aad garanaysid baa laga dhigtaa then create baa ku dhufanaysaa meesha ugu hooseysa create password ku dhufanaysaa then waa ka password uu leeyahay marka inuu passwordka ku samaysmay maxaa ku garanaysaa meesha ugu koreysa close ku dhufo close markaa ku dhufatid start buttonka tegaysaa start buttonka then shut down meesha falaarta yar baa taabanaysaa then waxaad ku dhufanaysaa log off baa leedahay log off ama switch user haddaad dhahdid kan hadeertaan aan ku jirno aan isticmaalana ka baxayna midka hadda aan sameyna gelayna marka hadeertaan waxaan leeyahay log off inuu passwordka noo shaqeey inaan aragno waa log off waxay ka dhigan tahay sign out camal okay waa kana magacii waa kana waa noo samaysmay hadeertaan password aan weydiinaya kana password nama weydiinaya kana password aan weydiinaya kana dil raban waa loo soo sameyn karaa kan laakiin waa midka cusub hadeertaan aan soo sameynay okay marka qaybtan hadeertaan aan imaanay waa qaybta log off-ka okay log off-ka waa maxay marka computerka waa kasoo baxday gudihiisa banaankiisa joogta meesha magaca aad ka dooranaysid qaybta ka hooseysan halkan waxay leedahay shutdown hadeertaan meeshaas ka dimin kartaa ama restart ka sameyn kartaa meesha hoosoo gaduudan ee dhanka midigta ah then know how passwordkaan ku dhufanayna 1 2 3 baa leenahay haddii aad qalado hintigaa soo baxaya kasoo qaad 1 2 3 4 aan geliyey enter baa leedahay enter waa qalad uu leeyahay username or password is wrong then okay baa leedahay hintigaa fiirinaysaa password hint meesha ka hooseysa boxka wax lagu qorayo ama meesha passwordka lagu qorayo hoosteeda da fiirsid hintiga waa maxay number so marka numberka waa taqaanaa 1 2 3 waa soo xasuusanaysaa then enter ku dhufanaysaa ama haddaad rabinna switch user kusii dhufanaysaa then okay baa leedahay then waa kaa magacii cusbaa aan sameynay baa hadeertaan preparing your desktop uu leeyahay oo markii ugu horeysay la sameeyo oo markii ugu horeysay la galo ma fahantay marka waa saa la soco username-ka iyo password-ka saasaa loo sameeyaa marka cashirkana kusoo celceliya saa u fahanto markaad sameynaysidna waa ina boss aad dhahdaa okay
marka waa noo furmay magaciina waa ku guuleysanay passwordkiina waa noo galay marka saasaa passwordka loo sameeyaa usernamekana loo sameeyaa marka waa kana know how okay know how marka full access u leeyahay inaha in meel kasta aad computerka ka isticmaali karto sababtana maxaa keenayo user accountiga ayaan bedelnay okay user type-kan ka wadaa baan bedelnay standard buu ahaa administrator baa ka dhignay marka user accountiga marka la sameynayo wuxuu kala baxaa standard iyo administrator marka administrator markasta ka dhigo haddaa computerka adiga leedahay si hadhowti aad computerkaaga isbedel aad ku sameyn karto ama wax aad ka bedeli karto ama wax aad ka tiri karto haddii kale hadhowti password uu ku weydiinayaa marka saa la soco cashir wanaagsan khayr idin rajeynaya subscribe na dhaha waxaan sameynaynaa usernamekii iyo passwordkii qaybtii labaad Windows 10ka maxaa yeelay Windows 7 aan soo sameynay marka waxaan arkaynaa Windows 10 haddii Windows 10 aad isticmaalaysidna saa u sameyn lahayd marka start buttonka ayaad ku dhufanaysaa start buttonka markaa ku dhufatid dhankaaga leftiga ayaad ku dhufanaysaa settinga tegaysaa setting markaa ku dhufatid meesha falaarta hadeertaan kuu muuqato setting aad kali garanaysaa then boxkana kusoo baxay oo ah Windows settings waxaad kasii tegaysaa accounts markaa ka tagtid waxaad kusii dhufanaysaa family and user okay kuwa kore maaha mid kuwa ugu hooseeya labada ugu hooseysa midka kore family and other users family and other users then waad ku dhufanaysaa sadaad meesha ugu dambeyso ah add someone else to this computer okay meesha falaarta aan dul saaray add someone else to this PC okay waad ku dhufanaysaa then box yar baa kusoo baxayo then waxaad ku qoraysaa magaca iyo passwordkaad ku qoraysaa magacaad ku qoraysaa magaca waxaan leenahay maintenance oo magaca u bixinaynaa then make it secure password marka u sameynaynaa okay passwordka waxaan ka dhigi karnaa 123 okay passwordka waa 123 then waa ku celinaynaa haddaa rabtidna ishaasaa taabanaysaa left click baa siinaysaa isha falaarta saaraysaa then saa u aragtid passwordka kusoo muuqana marka then 123 okay then waa saaraysaa waa iska hubeynaysaa inaad si sax u qorto oo qaldan yahay 123 okay then qaybtan ugu hooseyso in case you forget your password security question ka dooranaysaa marka security question ka waxa ka arti dooro okay then jawaabta dooranaysaa your answer ka aniga badanaa waxaan iska dhahaa none baan iska leenahay none okay adiga laakiin waxa arti dooro okay xagee ku dhalatay what is the name of the city where you were born meesha ku dhalatay waaye then none baa iska leeyahay jawaabta none baa leeyahay inaan waxba sheega ma rabo then waxaa noogu xigo what is the name of the city where your parents met meesha waalidiintaada ay ku kulmeen waa halkee ama kuwa kale ku hooseysana waad dooran kartaa okay then waxaan leenahay none baan leeyahay none then kadibna next baa ku dhufanaysaa next okay then waa ka magacii waa samaysmay maxaa samaysmay maintenance local account okay maintenance local account then waxaan sameynaynaa waa ka bixaynaa marka okay close baan leeyahay desktopka meesha cilada markaad joogtid waxaad sameynaysaa alta baa qabanaysaa then F4 baa taabanaysaa keyboardkan ka hadlayaa on the keyboard okay on the keyboard waxaad sameynaysaa alta plus F4 then boxkana kusoo baxay Windows 10 ka ah what do you want the computer to do maxaa rabtaa computerka inuu sameeyo then waxaa leedahay sign out baad ku dhufanaysaa sign out markaad dhahdeed then usernameka ayaad
aan sameynay baad gelaysaa Windows 10 ayaa ka hadlaya then okay waa leedahay laakiin haddeertan cancel baa leeyahay maxaa yeelay shaqa ku socoto inaan ka baxa ma rabo soo iga raali noqda okay